السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبوب channelkayga hadii ay tahay markii kugu horeysay oo channelkayga aad soo booqato ha ilooyin inaad gambalelka furato, like iyo comment aad nala soo wadaagto. Hadaa sidoo kale hor nala joogtay subscribe iyo like iyo comment-ga dhinaciina waayo. Marka la muuqaal cusub halkan waxaan maanta u soo fariistay Xabso Queen oo bariyahan social media saa loo walaaqayo inaan ka hadlo. Horta marka hore intaan barnaamijkan la dhicin asxaabta Xabso Queen waxay leedahay oo daraad social media ay soo gelisay ila arka iyo codadkeeda. Telefonkan ayaan ka daarayaa ila dhageysta. asxaabtu waa maqlaysiin Xabso Queen waxay dhahday screenshot ma duweysiin. Haddaad duubtiin hadii kale ani waxba ma galin. Hal guul ayaan soo maray halkaas oo guur ninkeyga hore Rashka Boy. Inna lillahi wa inna raaji'uun. Horta walaashayda markaan fiiriyo aniga Soomaalidana horta qofka wuxuu yahay waa la fiiriyaa. Qofkan horta fastawan ma fiyo yahay caafimaad muu qabaa waa inaa horta marka hore ogaataa. Aniga Xabso haddaan saa u fiiriyay maasha Allah horta qurux Ilaahay wuu siiyay. Maanta ma dhahayo qof ayay ka foolxun tahay, qof qurux leh waaye inkastoo diinta ay ku yar tahay miyaa ma aqaano. laakiin anyway qofkaas ana hadda waxaan u maleeyay inay kastoo isla sheekaystay. markii wiilkan hadda ay sheegayso Rashka Boy waa dareemi kartaa qof markuu yahay 19 sano ama 18 sano oo nin darteed oo u soo go'day waalidiinteena xagga kula yaceen. markii kadibna ninkii iyadoo waalidiinteeda ay ka soo tagday oo waalidiinteeda ay ka soo carartay Xabso Rashka Boy dartiisa oo haddana Rashka Boy ee isku dhaceen ee kala tageen oo haddana 19 sano iyadoo jirto saana social media ku maqlay ee haddana iyadoo 19 sano jirto caloosheeda u wad sii galay waa cunug uu qaaday. stress uu qaadi karo markaas adiga ma dareemi kartaa. marka Xabso haddaan aniga fiiriyay ahaanteeda xaggan saxda waaye. dadka buubuuinayaan oo Xabso intay u dajin lahaayeen mise dadka fusraiske waxa horta afkaada ku keensan weyse mise jaalintigaada ku keen weyso horta qof kale kuma keensanaysid. ma fahamtay. Xabsana halshan waxaan ugu diraa walaashii waa aniga halkan waxaan ugu diraa fartiin waa gabar Soomaali. maanta ani ma jecli gabdhaha Soomaalida sharafta ay leeyihiin in meel loogu dhaco waayo anoo gabar baan ahay. ma fahanteen. Xabso horta midaas waa ku qaldanta walaal macaan. hadda ka horena video adi aan leedahay social media la wareejinayo waan arkay mustalifa ay wareejinaysay haba ahaatabo. mida kale waxaan igu soo gaartay ama sheeko igu soo gaartay inaa dhahday ninkan iyo gabadha way isdhooqi karaan. taas diinteena ma baneenin. horta marka koowaad Allihii ku uuntay ka cabso. qiib iyo cadiib baa garbaha ada saaran. adduunyadan waa laga tagaa biri maracad baad ka hubsanaysaa. waxay horta qof kasta wuxuu samaystay camalkiisa aqri ugu horeeyaan. laakiin aniga gabar walaashayda tahay. Xabso ani hadda ahaanteeda waxaan ku arkay qof xagga masaxda xoogaha inaad tahay oo markii waalidiintaada ay kula yaceen Rashka Boyna uu ka tagay oo adoo xaamilo
oo haddana markaa dhashay cunuga kaas aqeeray aynow anigu hooyaan ahay anigu gabaraan ahay ma fahantee laakiin waxaan ku dhihi lahaa walaal macaan isdeji social media inuu kaa waalo muujiye waxba kuuma taraayo marka Soomaali nabi maxamedey inigana gabadha islaameed iska daayo oo fiyuuska ku raasina israaqada meel kale ka raasada jaalantigiina la imaada nimankan waashteen naagahan waashteen ya gabadha ka hara gabadha waa gabar xagga masaxda laga heesto qof iyo waxas kuma hadin lahayn marka xabsooy walaalay mustaqbalkaada u nax ilaahay ku unta ka cabso haddaad xanuunsan tahay ilaha ku caafiyo kulay aniga waxaan ku arkay qof xanuunsan xagga masaxda inaad tahay masaxdan damage haduu qofku bilaadanka ka soo gaaro run ahaantiis u soo kabada way adag tahay marka baayoy wallahi aad iyo aad ugu xumahay adoo gabar inaad saas ku dhaqanto shalay waxaan ku soo caynaysay naag adika nafsi dheereen ka quruxsaneen ya ka leendheersaneen shalay social media ku dhaxaysatay isla shalay waxay ku dheeysan maanta way taagan tahay marka abaayo I'm so sorry dibka kugu dhacay iyo waxa adigiisto wax kastana inuu ilaahay ruux kasta u tooba keeno waay marka waxaan ku leeyahay Allihii ku abuurtay u tooba keen walaal macaan ilaahay ku untana ka cabso waxaad ku hadlaysan iska daa qof islaana tahay oo malaa'iga gabdhahaada saaran adoonka Allah ku soo dirsaday waxa dhahdo waa laga qoraaya Allihii ku unta ka cabso oo waxaan iska dhaaf walaal macaan aad ku dhaqmayso ceebtaadana qarso oo qof aqal leh yeelo nin muwaynaysid ya I know nin muwaynaysid laakiin sharaftaada iyo wajigaada doonaysa magacaada iyo ka dhamina baay maxanto magac baa leedahay social media magaca ku leedahay qurux baa leedahay ya baayo sharaftaada is aruuriyaan ku dhaanay inta sana ugu baxay videoga asxaabta gabadha heestana waxa leeyahay gabadhaas ka hara war iska daaya qofkaas si waalana qof waa shawal arki jira social media xaq stress ku dhaco qoftaas stress haysta bifallan iska daaya intaas ayaan leeyahay waana ku mahadsantiin barnaamijka noo share gareey xabsana iga gaarsiiya waanideyda waan insha Allah hab inay ka heli doonto inay waantoon doonto insha Allah aan arki doonaa marka waad mahadsantiin guys barnaamijka noo share gareey like iyo comment iyo share noo qabta subscribe ta hanala baqiilina waayo dhiirigelin ayay noo tahay aad iyo aad ku mahadsantiin maalintan I hope xabsi inay isbedeli doonto insha Allah taala marka saas ayaan iga tagay